بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan maanta soo booqday Dr. Sheikh Maxamed Daqane oo runtii kamid ah doctorada Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeedba. marka hore waan u mahadcelinaynaa aad iyo aad ugu faraxsanahay in soo booqday. runtii booqashadu waa shay min diin aad iyo aad ugu mahadcelinaa doctorka. intaas kadib waxaan maanta halkan aan ku soo dhaweynay doctorka waxaana sidoo kale u sharaxnaa hawlaha aan bulshada u hayno iyo meesha ay wax noo marayaan. intaas kadib doctorka wuxuu jeclaystay inuu bulshada Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahay uu la wadaago waxyaabihii halkan kala kulmay sidoo kalena uu baaq u diro maxaan ku dhahay dadka muxsiniinta ah si ay uga qayb qaataan hawlaha aan u hayno agoonta Soomaaliyeed. marka waxaan rabaa insha Allah taala inaan doctorka ku soo dhaweyno kelmadiisa aan siino. السلام عليكم دكتور سلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل كان عنان تصوب وقني وأسكول كأغونتا المستقيم وقوب سي إلهي درتيس وحلوغو براء عرورة أغونتا ee aan awoodin inay waxbarashada iska bixiyaan. waxaan ognahay agoonnimadu inay tahay xilliyada ugu adag xilliga caruurta soo wajahdo oo maxay yeelay agoonnimada Carabiga waxa lagu yiraahdaa kali ahaasho ayaa lagu yiraahdaa. wuxuu ka kali ahaaday agoonkaas aabihii ayuu ka kali ahaaday oo ma haysto cid kafaalo qaada. marka iskuulkan waa meel lagu siiyo waxbarashada asaasiga ah dugsiga hoose dhexe sare si bilaash ah. intaasna waxaa soo waday dad muxsiniin ah. waa meel marka wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo waaye sidaas awgeed waxaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa inay garab istaag buuxa la soo istaagaan iskuulka agoonta ee al-Mustaqim. baahiyaha ka jira iskuulka waxa kamid ah in ay jiraan caruur badan oo aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashadii. marka kafaaladaas caruurta مثلا bishii waxay noqonaysaa $30 waxyaabaha loogu sameeyo waxbarashada iyo dharka. sidoo kale waxa jira hadii la yiraahdo 6 bilood waxay noqonaysaa $180. sanadkan wuxuu noqonayaa $360. marka sidoo kale iskuulka waxa jira caruur ka imaada meel dheer oo aan awoodin inay iskuulka soo tiigsadaan. iskuulka sidoo kale markuu wuxuu u baahan yahay basas ayuu u baahan yahay. waxa kale oo iskuulka uu u baahan yahay meesha hadda uu degan yahay waa kiro oo dadka muxsiniinta ay bixiyaan. dhul ayuu u baahan yahay iskuulka oo hawshiisa ay socoto oo dad badan oo muxsiniin khayr Allah siiyay ay ka soo jawaabeen. marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta ah inay ka qayb qaataan arintaas dhulka ah inay ka qayb qaataan. waxaa yeelay waxaan ognahay kafaalada la kafaalo qaadaya agoonka waa martabo weyn oo kamid ah maraatibta iimaanka. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis uu wariyay sayyidina Abu Hurayra aniga iyo agoonka qofka kafaalo qaada jannada sidaas ayaan ku nahay u yiri asoo ku ishaaray fartiisa sababada iyo midda dhexe wax yarna waa kala dhaqaajin. macnaha waxay ku tusaysaa manziladaas. waxaan ognahay dad badan oo ajila sida mesela nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa agoon. imaam Shaafici wuxuu ahaa agoon. imaam Ahmed ibn Hanbal wuxuu ahaa agoon. imaam al-Bukhari wuxuu ahaa agoon. marka bulshadu waxay wax ku tahay inay iskaalmaysato. xadiis laga wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyay Abi Darda wuxuu yiri nin ayaa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ka sheeganaya qalbigiisa inuu qalalay. markaas wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam hadii aad jeceshahay inuu qalbigaaga ku qoyo dantaadana aad gaartid agoonka wax si oo agoonka madaxiisa masax oo agoonka quudi qalbigaaguna ku jilcee muraadkaagana aad heshid ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala martabo weyn ayuu ku sheegay in agoonka la kafaalo qaado. ummadaana la isku imtixaamaya sadaqaduna fadli weyn ay leedahay in Ilaahay xaqiisa wax loo baxsado
in bulshada qayb weyn gargaarkeeda laga ahaado marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku dhiirigelinayaa hawshan khayriga ah ee iskuulka al-mustaqiim ee agoonta ee aan ardaydaas masaakiinta ah ee aan waxba haysanin wax lagu siinayo inay qayb weyn ka qaataan dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan waxay ka qayb qaataan dhismaha masaajidada dugsiyada quraanka khayriga dhan agoontuna waa qayb ka mid ah hawlahaas khayriga ah waay in marka agoontaas wax baristooda iyo wax siintooda ilaahay xaqiisa loogu dhawaado wax weyn ma ahan hadii bulshada iskaalmaysato wax weyn ayaa ka soo baxayo intaas ayaan isku boorinaynaa هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومهدسن yahay walaalkeen maxamed dhaqane aad ayuu u mahadsan yahay booqashada uu nasoo booqday howlaheennana uu arko sida ay u socdaan iyo sida xaalku yahay run ahaantii waa aad ayuu ula dhacay marka walaalkeen waa ku sharfan yahay uu ku mahadsan yahay imaatinka uu naajiibay iyo imaatinka uu noo imaaday والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa